waxaa joogsaday dhismaha iyo dayactirkii ka socday garoonka kubadda cagta ee Mogadishu Stadium kadib markii kooxda Al-Shabaab ay ku amreen shaqaalaha dhismaha ka waday garoonka in ay joojiyaan shaqada ilaa iyo amar dambe sida ay Universal TV ogaatay. Al-Shabaab ayaa la sheegay in ay la xiriireen shirkadda qaadatay qandaraaska dib u dhiska garoonka Mogadishu Stadium isla markaana ay mid u waceen shaqaalaha shirkadda ee qaybta ka ah dib u dhiska garoonkan waxayna ku wargeliyeen in ay joojiyaan shaqada ay ka wadaan garoonka iyagoona uga digay in ay soo xaadiraan garoonka sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah dadkii ka shaqaynaya dhismaha iyo dib u dhiska garoonka oo codsaday in aan la sheegin. dowladda Soomaaliya ayaa garoonkan Mogadishu Stadium sanadkii hore kala wareegtay ciidamada AMISOM oo saldhig u ahaa garoonkan in ka badan 7 sano kadibna dowladda ayaa ku bilowday dayactir si loo howlgeliyo garoonkan. iyadoo ay arrimahan jiraan haddana waxaa soo baxaya warar sheegaya in wada hadallo dib loogu bilaabayo dhismaha garoonka kubadda cagta ee Mogadishu Stadium ay u socdaan Al-Shabaab iyo shirkadda gacanta ku haysa dhismaha garoonkaasi. Al-Shabaab ayaa la sheegay in sanad walba ay malaayiin dollar ka helaan Mogadishu oo ay dowladda maamusho. kooxdan ayaana horey ku amartay ganacsatada Mogadishu inay joojiyaan isticmaalka kaamirooyinka qarsoon ee loo adeegsado goobaha ganacsiga iyo hoteelada. ganacsada ayaana dhaqan gelisay amarka kooxdan sida Universal ogaatay. laakiin hadda waxay dadku isweydiinayaan sidee amarka soo baxay Al-Shabaab ugu dhaqan galay xarun dawladeed. Maxamed Ibrahim, Universal TV, Mogadishu.